Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ku-xigeenkiisa madaxweynayaasha 10 dowlad deegaan maayirada Addis Ababa iyo Dirdhawa iyo hogaaminta ciidanka militariga Itoobiya ayuu kulan degdeg ah oo aan horey loo shaacinin uga furmay hotel ku yaala magaalada Bahardar ee xarunta deegaanka Axmarada. Kulankan ayaa lagu sifeeyay mid looga arinsanayo xaaladda qulban ee dalka ka taagan muddo sanad ku dhow oo ay kooxdan BB sababteeda leedahay. shirkan hotelka Bahardar ku yaala lagu qabtay ayaa ku soo aaday xilli xaaladda dagaalka waqooyi gabagabo marayso oo lagu kala adkaaday kooxda BB-na ay tabari kaga hadhay duqeyn dhanka cirka ah kadib markii ciidamadii BB aakhiro iyo maqale loo kala gabigareeyay. wuxuu kaloo shirkani ku soo aaday xilli aqoon-yahankii Axmaaro qurbad joogtii iyo aktifistayaashii badi u fahmeen dagaalka waqooyi mid shacabkooda lagu gumaadayo maadaama diyaaradaha dagaalku aysan u aabayeelaynin shacabka Axmaarada oo ay duqeynayaan. sababta saxda ah ee shirkan degdega ah hotelka Bahardar ku yaala loogu qabtay ayay siyaasiyiin badani ku fasirayaan inay kooxda BB uga arrinsanayaan sidii ay dagaalka waqooyi u joojin lahaayeen maadaama oo ay tabar gabeen dagaalkana aysan sii wadi karin haatan, halka siyaasiyiinta qaarkood ay aaminsan yihiin inay kooxda BB guuldarrada ku timid qaadan ladahay sidaas darteedna ay qorshe cusub hotelkan ku dejinayaan. haddaba sababta ka dambaysa in shirkan degdega ah hotelka Bahardar lagu qabto waxaa lagu macnaynayaa laba arrimood. waa midda koowaade haddii ay dagaalka joojinayaan inay uga jeedaan shacabkii Axmaarada oo aan la soo tashanay ayaa naga codsaday inaan dagaalka joojino oo marmarsiyo ayay Bahardar ka dhiganayaan. waa midda labaade haddii aysan joojinaynin dagaalka oo weli is adkayn iyo santaag ku sii jiro waan joognaa iyo inaan baxsano ha ka baqinayo ujeedku yahay. si kastaba ha ahaatee waxaan isha ku haynaynaa war-saxaafadeedka shirkan ka soo bixi doona haddii aysan kooxdan BB iskuba afgaran waayin oo aamusin. dhanka kale waxaa xalay ilaa maanta isa soo dhiibay ciidan tiro badan oo militari ah kuwaasoo ku jiray gudaha magaalada Dhase iyagoo ciidankan isa soo dhiibay u badan yihiin qowmiyadaha kale oo Oromo hormuud u tahay. maleeshiyaad tiro yar Liyu iyo Faano ayaa gudaha magaalada kaga soo ridaya ciidamada difaaca Tigreega ee ku hareeraysan Dhase hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo gabaad iyo dhufaysyo ka dhiganaya shacabka magaalada. isku soo wada duubo waxay u eg tahay in xaalku haatan daadax yahay garoonkii dagaalkana lagu kala adkaaday kooxda BB-na ay si walba u jabtay.